gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo si rasmi ah u furay tababarka awoodsiinta guddiga xasilinta iyo nabadeynta degmada Marka iyo deegaanada hoos yimaada oo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose u qabtay guddiga ayaa waxa ku sugnaa munaasabada Senator Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada Marka. Guddigan oo ka shaqeyn doona nabadeynta ayaa qaatay casharo ay ku dabaqi doonaan shaqooyinka horyaala. tababarkanna waxa uu daba socday tababaro uu maamulka gobolka Shabeellaha Hoose hore ugu qabtay degmooyinka kale ee gobolka. gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafu waxa uu sheegay in dhismaha guddigan uu muhiim u yahay maamulka degmada. guddigan las bixiyay dawlad ayaa maaragtay muxuu ahaay soo calaamadays riboodan halka rabaa aan dawladdu u gudbin ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka heer dawlad goboleed ribood ay naga sugaysaa dawladii dhaxan ribood ay naga rabtaa marka aan ka wada shaqeyno wada jirka iyo isku imaashaha iyo bulshada inaan u shaqeyno. Senator Xuseen Cali Xaaji ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ugu mahadceliyay sida uu mas'uuliyadda iskaga saaray tayeynta adeegayaasha dawladda. magaalada Marka waa loo soo dalxiis tagi jiray dadka dibadda joogo dadka dalka meel walba ay ka joogaan waxa la imaan jiray magaaladan waxa ku taal xeeb la dhaay Sambuusi waxa ku taal magaaladan wixii oo dhan la rabaa dib in loo soo celiyo tartiib way Roma hal maalin ku dhismin sababtoo ah gudoomiyaha gobolka waa nin dhalinyaro firfircoon oo aad u shaqeynaayo muhiimada qofka hadii uu dhiig furan yahay uu shaqeynaayo waxa waa shaqada iyadana waa sii soconaysaa. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in tababarada ay u qabanayaan maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu talagaleen in lagu hagaajiyo nidaamka wada shaqeyn ee dawliga ah iyo isku xirka bulshada iyo dawladda. waxaa ku jira guddigiina dad dhalinyaro oo ururka dhalinyarada matal waxay maamulka kala shaqeynayaan horumarada dhalinyarada haweenkii ku jiro waxaa la rabaa inay maamulkii kala shaqeeyaan baahiyaha haweenka odayaashii dhaqanka ku jiro waxaa la rabaa dhaqankii wanaagsanaa ee nabadda ka shaqeynayay ee Soomaalidu ay taariikh u lahayd inay kala shaqeeyaan maamulka iyo dadka ku nool nawaaxigan. waxaan haysanaa hadda wadankan Soomaaliya wuxuu haystaa hoggaan fiican madaxweyne aad u fiican oo runtii diyaar u ah dalkan inuu maqaamkii Afrika iyo guud ahaan caalamka aan ku lahayn Soomaali ahaan inuu soo celiyo oo halgan ugu jiro inuu muujiyo Soomaaliya inay tahay dal madax bannaan. Koonfur Galbeed waxaa joogo madaxweyne diyaar u ah bulshadiisii kaabiyaashii dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka shaqo abuurka iyo dib u dhiska iyo wacyigelintaba inuu garab ka siiyo rabo si uu u soo saaro bulsho Soomaaliyeed oo haddana ah bulsho reer Koonfur Galbeed oo hormuud u ah dhammaan gobolada Soomaaliya dadka ka soo jeeda oo dhan oo dhinac walba uga fiican.